xaaladda dalka Kenya ayaa caadi ku soo laabanaysa kadib markii xaalad adag oo doorasho uu dalku galay toddobaadyadii ugu dambeeyay inkastoo weli aysan xaaladaasi weli soo gabagaboomin oo laga warsugayo go'aanka maxkamadda haddana xaaladda waddanka ayaa hadda degan waxaana si caadi ah ku soo laabtay socodka ganacsiga gaadiidka dadweynaha shaqooyinka joogtada iyo weliba jawiga guud ee waddankaasi sidoo kale waxaa dib u furmay goobaha waxbarashada ee dalka Kenya sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed xaaladda waddanka Kenya ayaa ku soo laabatay sidii caadiga ahayd ee hore ganacsiga gaadiidka dadweynaha shaqooyinka joogtada ah ee xafiisyada iyo waxbarashada waddanka ayaa sidii hore ku soo laaftay saaka kadib muddo ku siban 10 maalmood oo uu dalku ku jiray xaalad doorasho iyo muran ka dhashay natiijada doorashada taasoo inta badan dadka Kenyaanka ah ay markii hore walwal badan ka qabeen waxa xigi doona natiijada doorashada ee ay mucaaradku diideen inay aqbalaan balse filashadii iyo cabsidii ay dadku ka qabeen inay rabshado waddanka ka dhacaan ma aysan dhicin oo xaaladda ammaanka dalku aad ayuu u wanaagsan yahay inkastoo weli ay dadku ka warsugayaan go'aanka kama dambaysta ah ee maxkamadda waddanku ay ka gaari doonto cabashada dhinaca mucaaradka ay ka qabaan natiijada doorashada magaalada Nairobi ganacsiyada ayaa sidii caadiga ahayd u shaqaynaya saaka iyadoo wadooyinka lagu arkayo dadka iyo gaadiidka oo u shaqo tagaya goobahooda shaqooyinka waxaana saaka sidoo kale dib loo furay goobaha waxbarashada ee waddanka ganacsiga suuqa Islii ayaa sidoo kale sidiisii hore u shaqaynaya saaka Soomaalida ku nool xaafadda Islii ayaa ku faraxsan in wax walba ay sidoodii hore ku soo laabteen kadib doorasho adag oo uu dalku galay sidoo kale gaadiidka dadweynaha ee gobolada aada iyo xafiisyada dawladda ayaa shaqooyinkoodii dib u bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan Abdulqaadir Cali Axmed waxawayaan dalka Kenya Nairobi gaar ahaan Islii waxawayaan ma sha Allah noloshu way soo noqotay dadka ma sha Allah wala shaqaysanaya hadda aradu waa amni alxamdulillah ilaahay baa nolol alashan noo ahaysiyay noloshu sideedii saxdayd bay ku soo noqotay waxawayaan wax dhibaato ah ma jiraan wax la cabsanaya ma jiraan waxawayaan Soomaaliduna hadda way shaqaysanaysaa ma sha Allah aad baa loo shaqaysanaya hadda dalkana nabadgelyo insha Allah ka sii rajaynayna hadii ilaahay yiraahdo ganacsigu inuu noo sii galaan ilaahay ka sii rajaynayna hadii ilaahay yiraahdo Nairobi iyo assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaweye nolosha waa fiican tahay waxoogow khalkhal ayaa 2-3 cisho galay laakiin hadda waa laga baxay magaaladu caadi bay noqotay nabadgelyadu caadi bay u soo noqotay wixii kasta oo ka dhacana sharcigu ku socdaa waana soo dhaweynaynaa siday doorashada u dhacday iyo nabadgelyadu si u socoto cadaaladda iyo waxaana doonaynaa nabadgelyo annagu haddaan nahay shacabka ku nool Nairobi marka waxa weeye waxaan soo dhaweynayaa nabadgelyada hadda maanta taagan oo ka taagan Nairobi oo ka baabuurtu isdaba maraysa dadku caadi waa suuqa wax loo gadanayaa ruux ku leexanaya iyo ruux u gafaaya midna ma jiro nabadgelyaha lagu soo dhawaada Nairobi Maxamed Xasan Hirmoge waa aad iyo aad baan idin salaamayaa VOA doorashada si fiican bay inoo dhamaatay meel walba maalintii oo qofkii ku guuleystay lagu dhawaaqay ka bacdi wax yar oo maaragtay macna lahayn oo meelaha qaarkood kastoo ay wax ka dhaceen ka bacdi maalintii ku xigtay xaaladdu way degtay laga bilaabo magaalada la yiraahdo Kisumu ilaa Siaya ilaa Nairobi hadda wax dhib oo zaida oo la sheegi karo male magaalada townka naftirkeed shaqadu dadkii way ku laabteen xafiisyada dawladda kulli dadka shaqaali way ku noqdeen xaaladdu hadda xaaladdu meel fiican bay noo maraysaa magacaygu waxa la yiraahdaa haddaan ku bilaabo Mubaarak Xasan Calasow doorashada waxay noqotay doorashadii ugu dheereed ee ka dhacday ebed dalkan Canada oo in badan la sugayay natiijada inay qabsanto alxamdulillah khalaas yar baa dhacay natiijadii meeshii lagu qabanayo doorashada xarunta hoolka shirarka ayaa khalaas ka dhacay ka bacdina jawigii wuxuu noqday si oo lama filaana madaxweynaha xilka hadda ku guuleystay oo wali aan magaca la caleemo saarin Ruto taageeradiisii iyo taageeradii kale in ay wax yar khalaasay dhaceen jawigana si caadi ah tartiiba ayuu ku soo laabtay maalinka ku xigay iyo maalinka labaad haddana waxa weeye isku socodka gaadiidka ganacsiga xaafadan aan ku suganahay Soomaalida Islii aad iyo aad ugu wacan tahay waxba khalaasa kama jiro waana aad iyo aad u fiican tahay waana soo dhaweynaynaa meel kasta ee Soomaalida ay joogto xaafadana wax amnigeedana waa 100% waxaan ku tilmaami karaa hadda aniga waxaan kamid ahay dhalinyarada xaafadan degan aad u weyn waa ma sha Allah wax dhibana ma ka jiraan
inkastoo xaaladda waddanka Kenya ay sidii caadiga ahayd ku soo noqotay haddana lama oga falcelinta kale ee ka dhalan karta marka ay maxkamadda sare ee waddanka ay go'aan kama dambays ah ay ka gaarto natiijada doorashada ee ay mucaaradku diidan yihiin. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.